شيدار الجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا عبد الغني جامع دعالة عبد الغني نبور وحال مانتا وبيشو تهاي سديد ماي لبا كوري تبي طبانكي مالين سنينا وعنا كو قادنا يا ورصحافة ير وان كغا هادلايو حريقة وريه عبد الملك موسى عضون عبد الملك موسى عضون وحو سي حق دراه وحو ليهي sheeka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa muddo dheer oo bilaa isagoo lagu soo eedeeyay eedii ugu horeysay la yiri waa lagu xiray ee ahayd in la yiri xamar baad tagtay oo farmaajo ayaa support taasina waxay tahay nasiib darro waayahay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlay telefishiga 2 wiil ka hor ayaa wuxuu yiri Cabdimalik laguma soo eedo uma xirna in arintii xamar ee wuxuu xiran yahay dowladaha jaarka sida Itoobiya waxa labada ku qurux badnaan lahayd iyadoo la yiraahdo maadaama uu Soomaali yahay in la yiraahdo wuxuu xiran yahay Soomaali laakiinse hadda waxay maxkamadda ay sheegtay inuu xiran yahay cadawga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed ama Jamhuuriyadda Soomaaliland taasina waa nasiib darro subxaanaka yaa cadiim waayahay in yar oo tusaale marka qaato Cabdimalik Muuse Coldoon Soomaalinimadisa marka idin cadeeyo in yar heestiisa kaliya oo ku qaadayo luqadda Carabiga ku sameeyay qof Soomaali ah oo Somaliland oo ku sameeyay luqad kale ma jirto waxa daawaday hadaa clipkiisa aragteen boqolaal kun oo Soomaaliyeed ama Caraba ama ummadda Soomaali oo meel kasta joogta luqadda kale oo kula hadlay ugu soo bandhigay khadiyada Somaliland taasi waa koow talabaad Cabdimalik Muuse Coldoon waxa uu qabto iyo waxa uu sameeyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Somaliland oo dhan meel kasta jooga oo ka dheregsiiyay waa samafale wuxuu caawiyaa ummadda jilicsan ummadda aan gudan karin waajibkooda iyo xuquuqdooda aan gudan karin ayuu caawiyaa waa waxyaalaha ay ka gaabisay Jamhuuriyadda Somaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya aanay qaban ayuu qabtaa ummadda muslimiinta ee dhibaataysan ee dhibaatadu hayso oo caawiyo hooyooyin iyo caruur iyo ragba intaba leh dawlad caawisa waxyaalaha uu qabtaa ma jirto oo waliba runta aad isu sheegno ah Somaliland waxyaalaha uu sameeyay Cabdimalik uu qabto ummadda dhibaataysan uma qabato Somaliland tusaalahan kale waxaan halkan in yar aan doonayaa inaan ka hadlo gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faisal Cali Waraabe bal arinta la yiri dhageysta waxa weeye wuxuu doonayaa madaxweyne hogaamiye inuu ka noqdo Somaliland TV-ga intuu soo fadhiistay ayuu wuxuu yiri Cabdimalik oo xamar tagay oo farmaajo soo arkay haddii anigu madaxweyne ahaan lahaa dil baan ku xukumi lahaa subxaanaka yaa cadiim waa hogaamiye dhan oo doonaya inuu madaxweyne mustaqbal noqdo si fiican waxa uu jawaabay Professor Samatar oo isla TV-ga ka hadlay markii su'aasha la weydiiyay wariyuu yiri saasa ina Cali Waraabe yiri Samatar aad buu arinta la yaabay waxaan leeyahay gudoomiye adigoo ah hogaamiye doonaya inuu madaxweyne mustaqbalka noqdo Somaliland haddii Cabdimalik oo xamar tagay alle dil baan ku xukumayaa oo waa dil adigu maxaad ahaan jirtay adigu maxaad dowladda siyaad barka ahayd adigu maxaad arimihii u foo maxaad ka qabatay waa la og yahay haddii ila dil lahaa adaa dil lagu dilaa oo ka galay ummadda Somaliland gafweyn taana aan cidnaymka kugu heesan taa ka soo koobaya waxaan kala doonayaa inaan idin bayaamiyo Cabdimalik xarigiisan maxkamaddu wax allaale waxay ku heshay ma jirto xadiidii markii maalintii la xukumay anigoo jooga waddankan Ingiriiska jaraa'idka ugu weyn ee Ingiriisku isagoo luqadda Ingiriiska ku qoran oo Cabdimalik aniga ka hadlay ayuu wuxuu soo cadeeyay oo qiray inaan Cabdimalik uu xaqdaro ugu xidhay jeelka xaqdaro lagu haysto maadaama aanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaa joogta waxaanu ballan ku qaadanaa haddii aan si dhakhso ah loo soo dirin Cabdimalik Muuse Coldoon oo xorriyadiisa loo siin inaanu caalamka oo dhan Yurub oo dhan Asia oo dhan America oo dhan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto Cabdimalik isha ku haysaa way la socotaa arrimiis waa la kacayaa waana safarada lagu mudaharaadaya wuxuu xidhan yahay dowladda Itoobiya cadow ayuu xidhay Cabdimalik marka waxaan leeyahay
dowladda somalilan ee haysta cabdimaalik u sii daaya xornimadiisa sida ugu dhaqso badan u soo daaya haddaa u soo daan weydaanna ummadda soomaaliyeed meel kasta markay joogto way gadoodaysaa dhaweysiiba dhallinyaradu meel kasta ay joogto markaa wixii ka yimaada muuqaftiradaa ka timaada iyo cawaaqib xumada waxay u noqonaysaa calaamad ku suntan jamhuuriyadda somalilan waxaa mar labaad iyo mar saddexaad cod dheer iyo cod gaabanba aan hadalkii kusoo koobaya cabdimaalik muuse coldoon oo dhowr bilood xaqdarro ugu xidhan jeelka somalilan ha la sii daayo waadna salaamatiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu